بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. قصة حنون بدن gabar saaxiibtay ah oo hal meel ku soo wada kornay aa iiga sheekaystay. kadib qisadaas waxay ahayd walaasheed hooyadeed dhashay oon aabaheed dhalsheed ka weyn hooyadeed dhashay caruur u dhashay baxay asina sacuudi tagay. gabadhaas iska arkeen meel aroosa ku kulanay igu tiri ninkii waa isfahanay wuu iga helay anna waan ka helay waa wada soconay muddaan wada soconay wuxuu iiga sheekeeyey reer iyo caruur inuu leeyahay anna waayahaan dhahi tiri. kabacdisaan u wada soconay ninka wuxuu ila noqday tiri ninaan qaada waayo, nin ila fiican, nin maasha allah ah. basaa muddo u wada soconay ninka waa nin saaciday jiray, waxay tiri walaaltinimay gargaar iyo wanaagan ku heli jiray. kabacdi labadeena waa isfahanay, waxaan isku fahanay guur markaan isku fahanay waan isguursanay. markaan isguursanay ehelkayga iyo ciddi iyo waxba lama soo xiriirnay tiri waa isguursanay. markaan isguursanay muddaan isqabnay muddo 2 sano ee markaan isqabnay kadib waxaan u dhalay cunug. haddana marka abaar la joogo muddo kadib cunug kalaan u dhalay. ani waxay tiri markaa cunugka kuu dhalay aan waalidkayga xiriiriskiisa bilaabay. waalidkayga sidii walaalihii sidii isku soo xiriiriyeen. markii walaalihii sidii isku soo xiriirinay dhahday kadib cunug labaadaan dhalay waan guursaday cunugaan dhalay ninkaygaan la soo hadal siiyey. waayay tiri waa nii duceeyey saan waa kan waa bis alloora. markii dambe cunug labaadaan dhalay. markaan cunug labaad dhalay gabaraan dhalay ee igu dhahday hooyaday ku sameeyey. hooyaday way faraxday, ninka wuu la xiriiri jiray, lacag u diri jiray, hooyada way noo ducey jirtay. gabadhaan walaasha ninkeedana sacuudiyuu jiraa, wixii dhan waa hal nin. gabadhii walaashay ninkii iyada way iswaayeen, wuu xiriiri waayey oo markii dambe dacway tagtay. anaa lii soo wacay nin noocaas saas oo reerkaas raadi. aniga lama filaanay ugu noqotay nin noocaas ee hebel dhahayo. hebel waaba hebel waxay dhahday waa coodi bilaystay, macquul maahan reer hebel u tag. reerka ninkan waa isleeyihiin. waxaan dhahay walaalo nin reerkaas saas oo hebel la dhahayo raadinoobaa, waana qoladaada, waana magacaaga, reerkaagaa ligu soo tilmaamay, say wax u jiraan walaashay oo hooyaday dhashay. ani waana fahmi waayey tiri. wixii dhan waxay igu noqotay tiri shoog, wax qof shoog ku dhaca camalay igu noqotay. marka wuxuu yidhi walaashaa magaceed heblaayo hebel allaha. heblaayo hebel miyaa anay caruur iyo dhash. aniga waan naxay dhahday. koomaan galay muddo bil kooma ku jiray. ciddi way isoo wa'aayaan, ayaga naftirkooda way yaabeen. aniga markaa muddo bil kooma ku jiray waa ka soo baxay. waxay tiri ilaahay waa caafiye. kadib markuu ilaahay caafiye waxay tiri reerkii aan la soo xiriiray ninka waa iska raacdeeyey. waan ku xanaaqay, waan la dagaalay, waxaan sameey aqoon waayey, waa shoogay. hooyaday saan ugu sheega aqoon waayey, walaashay saan ugu sheega aqoon waayey. markii dambe sidaan fikir dheeraad igu noqotay. markaas kadimaad gabdho kaleeto qaraabadaayay tolkaan wacday. waxaan dhahay arrintaasaa jirto, hooyaday walaasha fariinay sugaayaan, ninka ay raadina waa ninka ani ila joogo oo walaashay darteed ku nacay oo walaashay gooyey. waa aniga madaxayga, aniga waa qofka walaashay u nacay
oo walaashay ehelkeyga gooyey oo awlaadiisa gooyey waa aniga dartay. gabadhihii qur-aanay isaareen, adiga waxay dhahday qur-aanay isaareenay dhahday. kabacdi xoogaa miirkii soo noqday, fimilkaa loo sheegay, hooyadaa loo sheegay, walaashayaa loo sheegay. ninka walaashay sidaasuu ugu furan yahay lahay. shareecada islaamkaa la weydiiyey, waxaa la yidhi walaasha waa ka furan yahay, laakiin ilmihaygii aan ka cabsaday ugu tiri inay noqdaan xaaraan. shiiqaan weydiinay, dhowr shiiqoodaan weydiinay, waxaa lahay ilmahaaga wax lug xaaraan la yidhaah kuma lahan, ilmahaagu waa ku xalaal. alxamdulilaah, intaasaa mahaday igu dhahday. waxaan dhahay intaasaaba mahadba walaasheediyey, intaas dhib adaa martay ilmahaaga xaaraan kaa noqon, alxamdulilaah. gabadhin ninkeena saasaan isku dhaafnay, walaashay ninkana saasay isku dhaafeen. arrin muruga lah waaye. gabadhaas markay iga sheekayso waa lan tiirooday, waan ka naxay. waa arrin la yaab leh. wax walbo waa dhacayaan, wax walbo. reexmar waxay dhaheen cimrigaagu raagii dhalaa isku tusaa, marka wax walba waa la arkaa. kadib waxay igu tiri fimilka reerka dhalay oo ninka ilmaha u dhalay walaasheena u dhashay waxaa noqday fimil aad qaali u ah. waxay tiri aad u fiican, oo ciddeedii waxay tiri si fiican u raaligeliyey, soo hoyday, xumeyn dhiibay, meel walbana lala maray, wax walba nagula sameeyey wanaag ah. kadib waxaa la sameeyey buu tiri ninkii aniga ilmaha u dhalay wuxuu yidhi aniga arrintan ma ogeen, haddana waxaan rabaa reerkayga dambeeye, reerkaasaa aniga u baahanahay. markii labada reer waxay ku heshiiyeen oo lagu heshiiyey in wiilkaas walaalkiis ka weyn guursaday walaashay, anne kan waxay igu tiri anna kan aan ilmaha u dhalay sida iigu madax bannaanaado oo fimilka isku uurfiyoobaado, an xaalmarin iyo xumeyn iyo wanaag wax walba laisla wada gartay. ninkaas ani iqabo midka ka weyn walaashii lagu daray, maadaama walaashii wax xadhiga aan ninkaas dhexeynin. markii aniga ninkaasada ayada saasoo ugu furmabo. ha ahaatee hadda waa qiso xanuun badan. saaxiibtay hadda nolosheeda way ku qanacsan tahay, maasha allah. murugay soo martay isma dhehaysid, waxaan farxad ahayn kama muuqato. markaan caawo u tegay farxadeeda markaan arkay iyo qisadii waxay igu noqotay cajiib. kadib markaa cajiib igu noqotay sida nolosha ay hadda ku jirto iyo taariikhda markay iga sheekays waxay ila noqotay wax la yaab leh. marka wax walbo dhib walba oo dhaco wuxuu leeyahay dhammaystir, dhib walba oo dhaco dhammaystir uu leeyahay. marka walaashay waxaan leeyahay saaxiibtay noloshaa ku wacnaato, noloshaa ku wacnaato. ku jiray waa ka soo baxay, waxay tiri ilaahay waa caafiye. kadib markuu ilaahay caafiye waxay tiri reerkii aan la soo xiriiray, ninka waa iska raacdeeyey, waan ku xanaaqay, waan la dagaalay, waxaan sameey aqoon waaye, waa shoogay. hooyaday saan ugu sheega aqoon waaye, walaashay saan ugu sheega aqoon waaye. markii dambe sidaan fikir dheeraad igu noqotay. markaas kadimaad gabdho kaleeto qaraabaday tolkaan wacday, waxaan dhaha arrintaasaa jirto, hooyaday walaasha fariinay sugayaan, ninka i raadina waa ninka ani ila joogo oo walaashay darteed ku nacay, oo walaashay gooyey waa aniga madaxayga. aniga waa qofka walaashay u nacay, oo walaashay ehelkeyga gooyey oo awlaadiisa gooyey waa aniga dartay. gabadhihii qur-aanay isaareen, adiga waxay dhahday qur-aanay isaareenay dhahday. kabacdi xoogaa miirkii soo noqday, fimilkaa loo sheegay, hooyadaa loo sheegay, walaashayaa loo sheegay. ninka walaashay sidaasuu ugu furan yahay lahay. shareecada islaamkaa la weydiiyey, waxaa la yidhi walaasha waa ka furan yahay, laakiin ilmihaygii aan ka cabsaday ugu tiri inay noqdaan xaaraan.
shiiqaan weydiinay, dhowr shiiqoodaan weydiinay. waxaa dhahay ilmahaaga wax lug xaaraan la yiraah kuma lahan, ilmahaagu waa ku xalaal. alxamdulilaah. intaasaa mahaday igu dhahday. waxaan dhahay intaasaa mahadba walaasheediyey, intaas dhib adaa martay, ilmahaaga xaaraan kaa noqon. alxamdulilaah. gabadhii ninkeena saasaan isku dhaafnay, walaashii ninkana saasay isku dhaafeen. arrin murugo leh waaye. gabadhaas markay iga sheekayso waa lan tiirooday, waan ka naxay. waa arrin la yaab leh. wax walbo waa dhacayaan, wax walbo. reexamar waxay dhaheen cimrigaagu raagii dhalaa isku tusaa. marka wax walba waa la arkaa.